siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wada tashiga toosinta qaranka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa xukuumadda ku eedeeyay heshiiska ay la gashay wadanka Isuutaga Imaaraadka heshiiskaas oo dhigaya in saldhig military ka sameystaan airportka Berber ee gobolka Saaxil siyaasiyiintan iyo xildhibaanadani ayaa xukuumadda uga digay inay heshiiskaasi gasho cidda inoo gashay wada hadalkani calooluhoodu bay ka fikirayeen masiirka ummadda ka fikirayeen waay haday ka fikirayeen waxay oran lahaayeen war waxaanu nay dalaan la aqoonsanayn arrimaha asaasiga ku gadaaman ciidamo aqoonsi haysta oo imaaraadku leeyahay markuu dalkayga soo dagaan arrimo aanan ka jawaabayn international looga ayaa jiraya horta aqoonsigu ha ka horeeyo inta aydan anaga noo baahanay saldhiga inaan nooga baahan saasay maalintii dekada أنا waxaan idhi war dekadii Berbere Soomaaliland deeq ma hooyada xanuunsanaysa fiisa miyuu ugu weeday baan iska badaayo waxa kala dhamaan nimankan Imaaraati horta ay doonayeen in dalkeena iska qaataan hooyadeena xanuunsanaysa baasaboorka Soomaaliland Dubai kuma tagi karto dawlad waqtigeedu dhamaaday oo ku siisima ah baarlamaan waqtigeedu dhamaatay oo ku siisima ah golo guurtiyo bari horeba iyadu seexatay intii rag ahaa ee wadanka u naxaayay ee markii horeba reconciliation ka inoo sameynayay ee marka wadanku xaalad xun ku jiro u soo bixi jiray u nixi jiray na way wada dhinteen ummadaana aynu garanayn oo shilin ka shaqeynayana way noo fadhiisteen bal iyaguna markay waqtigoodu dhamaaday oo anigu su'aasha kaliis weydiinaya waxa weeyaan yaa u nool wadankan kuwa taageerada ku dooraynay ee mustaqbalka ugu hadlayna ilaa aan masal calee jirku wuxuu lahayne waxa weeye waa shacabka weeye dhalinyarada mustaqbalkooda in la taageero oo raayga la taageero oo laga badashiyada mujaahidiinta codkoodii la taageero oo ilaahay laga yaabo oo shacbiga laftiisu oo ka kaco fadhiga ayaa loo baahan yahay haddii kale waxa imaan doonta maalinta dambena inta lacag la keeno la yiraahdo labada golow kaalayo federaal baynu noqonaynaa dabadeetna toos gacanta loo taago waana dhacaysaa ila wana la tijaabiyay horta qofka xaqa ku siiyoga ee mabdiisu aanu iibahayn aniga idii wajiga gacanta ayaa taageeradii waxa waa taariikh qorsada ka bacdi ayaa wixii la kala iibsaday iyo dhaameelkii la qaatay laga sheekaysan doona inagoo nooleyba waxa kala oo la yaabay wixii meesha ka dhacay ee ragii waaweynaa ee xildhibaanada ahaa ee la soo doortay sameebaangaar wuxuu u qaatay caruur iskuul u jirta caruur kalaas ku jirto bax saar eeye cala fariisana oo laganeo badana إدريس إسماعيل عبد تلفزيون عالمي Somali News مقالة هرقيساء